حديث أبا دعي وهذا وقت كان الجوجع وحال على قصة عجيبة لو أنو يرير أول على عيارية أيام مت كمل إكتو إيش وحاكم قال قري وحبا كتشوا إيش وين عاميسا وحبا كجرا دخاتيرتي لوجي أو تنوي كبكان إيش ميش مذوي دكتور كسو حليه أنا عجيب ما تهذا كر وخطر إيشان هذا أنت عبط إيش هو بيله يا عنب هو يدو إسكو ويد بعطوه عنق ما سيحنكر إنه بيا كدعية ما أنت دم وحي ما قشي النبي صلى الله عليه وسلم حديث سداوا مرضاكم بالصدقة من النبي جاي صلى الله عليه وسلم أنا كوائنا فيري صدقة بحس صدقة وين بحس وحي تري أسبوع الدم عنقي ما تشاك عبد أختار جاي أختار بقى يقول يري تري بل أنا كنا صيف سنة يو عنقان برابين إن انقلوا markaasuu markuu wisitaynayay ayuu ishii saas u taataabtay wixii oo cadda furtu ka soo ilo banaanka ku soo dhacay Allahu akbar markaasuu dhakhtarkii wuxuu yiri wixii way soo baxeen gabadhii waxa qalbigeeda ku jirta daawo mardaakum bi sadaqa nabiga sallallahu alayhi wasallam ajiib way ka faa'iideyso akhi jira ku haysta dib ku haysta meel kale ha aadin waa caafimaad nabiguna baray sallallahu alayhi wasallam waa caafimaad ilaada ka faa'iideyso isku day samee wad ku caafimaad insha Allah ta'ala haddaad ku caafimaad weydid xoogaa iimaankaaga hooseeye intaad iimaanka xoojiso oo aamintid xadiidka nabiga samee wad ku daawoobaysaa xaqiiqo way arrinkaas arrinka loo cajiiba oo sadaqadu leedahay waxa weeye arrinkaasi sadaqadu waxay elisaa balaayooyinka iyo musiibooyinka maanta musiibooyin baa dhacaya badan carruurta musiibaa ku dhici baabuur baa kula gadoomi jirkaa kugu dhici masaa'ib baa soo degi dukaan baa guban reer baa isfuri oo isdagaali qof baa waxaa ku dhacaya jiro degdega musiibooyinka tirada badan ee dhacaya waxaa ilaahay ku difaacaa sadaqada waxyaaba yaab kale waxaa ka mid ah Muhammad ibn Wadaax rahimahullah waa culimadii hore oo muslimiinta caanka ka mid ah ayaa maalmaha ka mid ah asagoo darsi xadiis akhrinaya oo fadhiya yaa waxa u soo galay nin orday kaasoo wuxuu ku yiri cunugaagii yara ayaa waxa ku dhacday taayir beer lagu falayay beerta taayirada waaweyn oo loo jiido lagu falayo ayaa ku dulnaa sheekhi wuu fikiray wuu aamusay xoogaa wiilkii ardayga kitaabka akhriyo wuxuu yiri wad darsiga sii wad wiilkii darsigu iska waday sheekhu iska aamusay waxa ma dhihin qof la yiri ilmaha balaayo ku dhacday oo kicin oo isbedelin oo qiiroonin oo aan ooyin oo nixin ka war darsiga markii uu xoogaa socday ayaa nin kale ordaya soo galay markaasuu wuxuu yiri abshir bishaarayso Muhammad ibn Wadaax wiilkaagii taayirkii waan ka kicinay waxba ma gaarin maradiisii buu la haray maradii baa ku dhigtay taayirkii xabad wiilkii ma gaarin ninkii sheekhiya wuxuu yiri awalan yaabay awal ayaan yaabanaa saaka waxaan arkay buu yiri wiilka yarka ah oo albaabka miskiin soo gargaraacay xabado khubus oo rooti asiinaya marka hadda dhahdeen buu yiri dhibaata ku dhacday waxa isu kay qaban weyday saako sadaqa baxsaday haddana musiiba ku dhacday arrinka asalkuna wuxuu ahaa as-sadaqatu tadfa'u al-balaya sadaqadu balayooyinkay celisa marka wuxuu waa isu kay qaban weyday laakiin waan fahansanaa inaan wax ku dhacayno qofkaas iimaanka fiir akhi haddaad sadaqa baxsato oo maanta wax sadaqaysato musiiba kuma dhacayso dhibaato kuma taabanayso